waxa ay ku soo noqotay gurigeedii Vienna oo marka ay kadinkiisa soo gashay ay dareentay wehelaanta ay joogto iyo xusuusta ayaamihii wanaagsanaa ee ay la qaadatay ninkii ay jeclayd ee Moshe. Habeennimadii ay gurigan u hoyatay waxa ay dhex jibaaxday buuro walbahaar ah iyo badweynta xasuusaha jacaylkeedii ka alkulmay gurigan ay caawa hurdo iyo furaashkan ay ku jiifto. Hurdo indho isuma ay keenin waxa aanay nafta ku maaweelisay daawashada cajaladaha xafladihii arooskii iyada iyo Moshe iyo sawirrada jacaylku ka muuqday. Markii uu waagu beriyey waxa ay raadsatay dumaashideed Saara oo iyadu sidii ugu noolayd magaalada Vienna muddo saacad ku dhow ayaanay kalgacal isku ilmaynayeen. Amiina iyo dumaashideed Saara waxa ay safar booqasho isugu raaceen degmada yar ee Westendorf oo ay iyadana ay sidii u degganaayeen qoyska ninkeedii geeriyooday. Waxa ay maalmo madow la soo qaadatay qoyskii ninkeeda oo weli ku jira murugada wiilkooda geeriyo nolol aan midna lagu sheegi karin. Waxa ay ku calaacalayeen qof baa dhinta oo la aasaa. Ileen qof baa la caddeeyaa in uu cadow u gacan galay. Waa ay ku samri lahaayeen haddii labadan arrin midkood uun ay inankooda ku ogaadaan. Murugadaas lafteedu waa ay la qabtay qoyska, laakiin markan arrin kale ayaa kaga xanuun badnayd. Waxa ay xasuusan tahay in Moshe qoyskoodu weligii degganaa Usteri kuna qanacsanaayeen nolosheeda oo ay doonayeen in uu wiilkooduna meel kula noolaado. Waxa ay og tahay in qoysku uu marka horeba diidanaa fikirkii uu wiilkoodu ku tegey Israa'iil iyo go'aankooda oo ahaa in Moshe marka uu waxbarashada dhammaysto uu dalkiisan Usteri ka raadsado shaqo, laakiin cidda sabab u ahayd in hamigiisa ay gasho ku noqoshada Israa'iil ay tahay iyada Amiina. Inkasta oo aanu qoysku tusin wax colaad iyo calool xumo ah, haddana arrintani iyada waxay ku haysay calool xumo iyo wejigabax aad ugu sii batay markii ay qoyskii Moshe hortagtay. Waxa ay isku dayday in ay qoyska u muujiso sida ay u jeclayd ninkeeda ilaa haddan ay diyaar ugu tahay in ay u aarto, laakiin waxa ay gashay qalad weyn oo dhinaca sirdoonka ah. Waxa ay jebisay mid ka mid ah heerarkii udub-dhexaadka u ahaa shaqadeeda basaasnimo oo ahaa in waxa ay ku howlan tahay aanay ogaan garasho ha joogto xitaa dad kuwa ugu xigaa. Waxa ay ilowday darsigii loo dhigay ee ahaa sirdoonku malaha saaxiib, malaha ehel iyo walaal, mala macaariif, waa keliya raadi oo gal god kastoo war ku jiro, isuna ekaysii qaabka kasta oo aad filayso in qofka aad kaga qarin karto shaqadaada runta ah. Garasho xumo iyo doqoniimo mid ay ka ahaydba Amiina iyada oo hortaagan qoyskii Moshe oo ay ku jirto saaxiibadeeda udumaashiga ah ee Saara, ayaa ay si cad ugu faantay inaanay weligeedna ilaabi doonin jacaylkeedii Moshe. Hooyo, aabbo iyo walaalba waxa aad igu ogaataan inaanan hurdo ledin ilaa aan 1000 jeer u aaro ninkaygii inankiinii Moshe. Waxa aan idinku bishaaraynayaa in aan haddaba ku guda jiro argoosigii oo aan maalin kasta u aaro Moshe, ayaa ay ku tidhi qoyskii ninkeeda geeriyooday. Waxa ay si badheedh ah ugu sheegtay in sababteeda ay maalin kasta ku dhintaan dad Carbeed oo ay ka daba joogto dhiiggii ninkeeda. Waxa ay qoyskii Moshe ugu warrantay xogo badan oo ay ahayd in ay sirahaadaan, waxaa ka mid ahaa howlgallada ay ka fulisay Beirut. Nasiib darro waxa aanay ka warqabin xog muhiim ah oo laga yaabo haddii ay og tahay in aanay ilaa xadkan booqateen. Tusaale ahaan, ma oga in dumaashideeda ay saaxiibka ahaayeen ee Saara ay muddooyinkii dambe aad u sii dhex gashay ururkii dhalinyaro ee ka jira Yurub, gaar ahaan ururkii Hippies oo ahaa urur aan danayn kala duwanaanshiyaha jinsiga iyo jinsiyadda. Saara waxa ay isbarteen nin dhalinyaro ah oo Falastiini ah oo ay ururka ku wada jireen. Wiilkan aabbihii waxaa dilay Yuhuudda. Waxa uu ku soo koray nolol agoonnimo oo aad u qadhaadh. Waxaa markasta qalbigiisa ka buuxday colaadda iyo nacaybka Yuhuudda. Agoonnimadii ay Yuhuuddu ku sababtay ayaa keentay in waxbarashadiisii aasaasiga ahayd burburto, islamarkaana aanu gaadhin heerka aqooneed ee qayrkii ku badhaadhay. Qaaradda Yurub ayuu muddo ka hor u soo tacabiray, laakiin noloshiisa Yurub wax badan kamay beddelin duruufihiisii nololeed. Saara kuma ay farxin warka Amiina ee ah in ay ka qayb qaadato laynta maatada reer Falastiin, laakiin Amiina waxba kamay dareemin shucuurtaas saaxiibadeed. Markii ay nasatay waxa ay dib ula soo baxday baasaboorkeedii Israa'iiliga ahaa oo ay ugu duushay magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iil. Waxa ay xiise badan weli u qabtay in ay sii wado howlaha basaasnimo iyo in ay ku sii jirto hawsha ay ku sheegtay inay ugu aarayso ninkeedii. Amiina oo xusuus qorkeeda kaga warramaysa safarka Vienna ayaa qortay, maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bishii 9 1973, waxa aan soo booqday gurigaygii magaalada Vienna. Socdaalkaygu waxa uu ku jihaysnaa Israa'iil, laakiin waxa aan ku hakaday Vienna si aan u sinasto, isla markaana sii arko qoyska ninkaygii Moshe. Markii aan salaanka gurigayga Vienna sii fuulayay, jidhkaygu cabsi ayuu la gariirayay. Waxa aan ku dhici waayey in aan albaabka furo. Markii aan laydhka shidayba waxa ay indhahaygu qabteen sawirka Moshe oo ku dhegsanaa gidaarka isoo eegaya. Waxa uu ahaa sawir aad u weyn oo uu ku labisnaa dirayska militariga.
inta aan quraaradii dusha kaga xidhnayd boodhkii fuulay gacantayda kaga masaxay ayaa aan si niyad ah u dhunkaday. xidhmo ubax nooca uu jeclaa Mooshe ah oo aan siday ayaa aan sawirka dhinaciisa sudhay. waxaa igalay dareen ah in dhoola caddayntiisa quruxda badani ay markan tahay canaan ka soo burqanaysa qalbigiisa. waa run oo canaani kama madhna. waxa aan xasuustay doqonnimada aan sameeyey iyo sida aan anigu Mooshe ugu riixay sababtii dhimashadiisa markii aan ku dhiirigelinayay in aanu u guurno Israa'iil. waxa aan isku dayay in aan soo nooleeyo dhoola caddayntiisii, laakiin kumaan guulaysan. sawirka hortiisa ayaa aan jilbaha dhigay oo aan bilaabay oohin. waxa aan ka baryay in aanu ciilka uu qabo igu si xanuunjin. waxa aan ka codsaday in aanu iga cadhoonin. waxa aan u ballan qaaday in aan u aari doono. kama hadhi doono u aaristaada ilaa aan indhahayga ku arko hilbo googoy oo dhiigu sida ilaha biyaha leh uga burqanaya. ilaa aan arko 1,000 afo oo carbeed oo u barooranaya raggoodii oo aynu dilnay. ilaa aan arko 1,000 hooyo oo carbeed oo curadadoodii waayey. ilaa aan arko 1,000 wiil oo dhallinyaro carbeed ah oo xubno jidhkooda qaar goyn yihiin. markaas ayuun baa aan hurdoladayaa. markii aan intaa idhi ayaa aan kor u eegay sawirkii Mooshe. waxa ay indhahaygu ii sawireen dhoola caddayntii niyadsamida ahayd ee aan ku aqaano oo dib u soo noolaatay. waxa aan dareemay shucuurtii ii xasilin jirtay marka uu labadiisa gacmood dhexdooda i gashado si uu laabtiisa iigu xejiyo. waxa aan Mooshe ka baryay in uu iga daayo canaanta. Fiyeena Amiina waxa ay uga sii duushay dhinaca Israa'iil oo ay doonaysay in ay muddo gaaban xarumaha Mossad ku soo qaadato koorsooyin dheeraad ah oo ay ku sii kobcinayso xirfaddeeda basaasnimo. kulankii dhagarqabayaasha Amiina Israa'iil kuma ay lahayn saaxiibo marka laga reebo dhowr nin oo ka mid ahaa saraakiisha wakaaladda sirdoonka Israa'iil ee Mossad. kuwaas ayaana kaga hor yimi gegida diyaaradaha. waxa ay indhaheeda ka khristeen daal badan iyo diif ay soo martay Amiina. sidaawgeed waxa ay toos u geeyeen gurigeeda. waxa aanay ka dalbadeen in ay iswaraysiga iyo kulamada dib u dhigato oo ay marka hore nasasho fiican qaadato. inta oo keliya maaha ee si looga ilaaliyo in cid la'aanta gurigu ay ku xasuusato duuliyihii ka dhintay, waxaa loo keenay dhakhtarad cilmi nafsiga ku takhasustay oo xaalkeeda si dhow ula socota. dhakhtaraddan oo magaceedu ahaa Suhayra waxa ay ahayd Yuhuudiyad asal ahaan ka soo jeeda Yuhuudi dalka Ciraaq. Suhayra waxa ay aad uga shaqaysay in Amiina ay aad u dejiso, isla markaana u fududayso dhexgalka bulshada Yuhuudda si loogu gogol xaadho in ay aakhir ka degto Israa'iil, taas oo ay ka muuqato sida durbadiiba ay sirdoonka Yuhuuddu ugu qanceen shaqada Amiina. waxay muhiimadda ugu weyni ahayd in Amiina laga dhigo qof si fiican ula qabsatay Yuhuudda Carabta ah. waxaa la siiyey duruus badan oo afka ah iyo waxbarasho dhinaca dhexgalka bulshada ah. waxaa la baray Carab badan oo Masiixiyiin ah oo ku dhex nool Yuhuudda. Amiina waxa ay waraaqaha xusuus qorkeeda ee la helay ku sheegtay in dadka ay maalmahaas baratay uu ka mid ahaa Muniir Rawfah oo ah duuliye militari oo u dhashay dalka Ciraaq, kaas oo sanadkii 1967 diyaarad nooceedu ahaa MiG lagu sameeyey dalka Ruushka kala goostay militariga Ciraaq isuna dhiibay Israa'iil. saraakiisha Mossad oo weli waday dadaalkii ay ku dejinayeen xaaladda Amiina ayaa qorsheeyey in la isbaro duuliyahan iyo qoyskiisa iyo Amiina oo sheekadeeda laga dareemay inay xiisayn lahayd in ay hesho cid ay isku dhaqan iyo af yihiin. Muniir iyo xaaskiisa Maryan oo dadeedu ku dhoweyd 40 ayaa si fiican u soo dhoweeyey Amiina. Muniir waxa uu uga sheekeeyey waayihii soo maray iyo dhibadan oo uu sheegay in uu la kulmay bilowgii noloshiisa Israa'iil. waxa ay indhaheeda ku aragtay duruufaha adag ee uu ku nool yahay. Muniir oo aan aqoonin ku hadalka luuqadda Yuhuudda ee Hebrewga waxa uu waayey saaxiibo, waxaanu bilowgii hore la kulmay camal la'aan ba'an. waxa kale oo uu uga sheekeeyey culayska ay bilowgii ku hayeen ilaalada ammaanka ee sida joogtada ah loo raacin jiray si ay noloshiisa u ilaaliyaan. waxaa jirtay mar uu bilowgii wax yar u shaqeeyey ciidamada difaaca ee Yuhuudda, laakiin wakhti gaaban ayaa uu waday, waxaananu u bayday in uu iskii u shaqaysto si madax bannaan. markaas ayaa uu aasaasay wakaaladdan wararka. Amiina waxa ay Muniir in badan ka waraysatay shaqadan duuliyanimo ee militariga iyo qaabka uu isu badbaadin karo duuliyaha weerar ku yimaado. ujeeddadeedu waxa ay ahayd in ay baadho rajada ah bal inay suuragal tahay in ninkeedii Mooshe ka badbaaday weerarkii diyaaraddiisa lagu soo riday. weli waxa aan niyaddeeda ka dhammaan rajadii ahayd suurtagalnimada in maalin maalmaha ka mid ah uu nolol kula kulmo iyo inay quusato oo ay garowsato in Mooshe dadka aakhiro ku biiray. marka ay waraysanayo sarkaalkan duuliyaha ahaan jiray, waa mar ay quus ka joogsatay jawaabaha ku saabsan ninkeeda ee sirdoonka Israa'iil siiyey. mar kasta oo ay doonto in ay ogaato bal in ay nolol ku og yihiin iyo in laga quustay, waxa ay siin jireen jawaab haa iyo maya labadaba geli karta. Muniir Rawfah waxa uu u sheegay in diyaaraddan uu watay ninkeeda Mooshe oo nooceedu yahay
iski hawk 4 ay tahay diyaarad Maraykanku sameeyo oo casri ah farsamadeeduna u diyaarsan tahay inay badbaadiso duuliyaha. waxa uu u sheegay in diyaaradaha noocan ah kursigooda duuliyuhu uu isu beddelo kursi badbaado haddii khatari soo food saarto. kursigaas oo gaarkiisa ula duulaya duuliyaha lagana yaabo in uu badbaadiyo. Muniir oo in badan uga faallooday Amiina nooca diyaaradda uu watay Moshe iyo sida ay suuragal u tahay in uu badbaadi karo, ayaa hadalkiisii ugu soo koobay haddii nooca gantaal ee ku dhacay diyaaradda Moshe uu ahaa Sam-6 waxa ay u dhowdahay in uu badbaaday oo maxbuus uu u yahay Suuriya haddiise gantaalka ku dhacay ahaa Atool rajada noloshiisu aad ayaa ay u yar tahay oo waxa ay u dhowdahay in isaga oo aan ka gaadhsiin goosashada dalaayada badbaadada baaraashuud ay diyaaraddu hawada kula qaraxday. jawaabtan uu Muniir siiyey Amiina inkasta oo ay ahayd mid cilmiyeysan haddana kumay haraad bixin waayo si la mid ah jawaabtii saraakiisha Mossad ayaanay iyaduna haa iyo maya midna ugu caddayn. diyaaradda MiG ee uu duuliyahani ula soo goostay Israa'iil waxa ay noqotay hadiyad farsamo yaqaanada milatariga Israa'iil ka caawisay in ay fahmaan samayskeeda oo marka hore aanay xog ka haynin. waxaa la aaminsan yahay in diyaaraddaasi Israa'iil bartay darsi markii dambe ee uu dhacay dagaalkii Israa'iil iyo Carabta 1967 ka caawiyey iska difaaca iyo soo ridista diyaaradihii noocanaha ee ay wateen ciidamadii dowladaha Carabta ee isbahaystay kuwaas oo ahaa Masar, Suuriya iyo Ciraaq. duuliyahan reer Ciraaq oo markan uu diyaaradda la goostay dadiisu ahayd 32 sano jir waxa uu haystay madhabta Kaatoliga ee diinta Masiixiga. xaaskiisa oo diiday in ay Israa'iil ku noolaato awgeed ayaa uu sirdoonka Israa'iil u soo saaray waraaqo socdaal oo magacyo been ahi ku qoran yihiin waxa aana u suurta gashay in ay warqadahaas ku tagaan dal ka mid ah dalalka Yurub. dalkaas ayaa ay ka furteen kaalin shidaal oo ay ku ganacsadaan si ay noloshooda ugu maareeyaan. Israa'iil waxa ay Muniir ka abaalmarinaysay hawsha uu qabtay oo ahayd in uu Israa'iil u keenay diyaarad ay kulamantay sirta farsamo ee diyaaraddan Ruushka ah. waxaa la ammanay xogta diyaaradda MiG ee markaas dunida ku cusbayd u sii gudbisay sirdoonka Maraykanka oo isaguna inta uu daraaseeyey soo saaray diyaaraddan difaaceeda iyo weliba diyaarado dagaal oo nashqadan laga dheegtay. Muniir waxa uu wadne xanuun kedis ah u dhintay sannadkii 1998. laakiin markan ay kulmeen Amiina waxa uu ka shaqaynayay wakaalad wararka ah oo uu isagu aasaasay una bixiyey Al-Adwa luuqadda Yuhuudana ku noqonaysay Al-Xanuuka. xaaskiisa Maryana waxa uu wakaaladda uga dhigay agaasimaha xidhiidhka dadweynaha. Amiina waxa ay xiise badan u muujisay in ay barato lana kulanto ninkan Carbeed ee ay u wada adeegaan Yuhuudda. dhowr jeerna waxa ay ugu tagtay gurigiisa oo ay u joogaan xaaskiisa iyo carruurtiisu. xiisaha ay Amiina u qabtay duuliyahani ma uu ahayn oo keliya xiisaha jinsiyadda ay wadaagaan balse waxa u dheeraa iyada oo doonaysay in ay ka weheshato cidhiidhiga ay ku qabto su'aalo badan oo uu damiirkeedu weydiiyo. Muniir oo markan ay isbarteen ay dadiisu ahayd 38 jir waxa uu ahaa maariin indho waaweyn fooda hore ee timihiisuna hadda uun bilaabeen in ay go'aan. la soco qaybta 6 dhowaan ee taxanihii buugga Amiina al-Mufti basaasadii Carbeed ee Mossad ugu caansanay. kana mid noqo asxaabta buug maqal ku xidhan.